maamulka jaamacadda Alfa ayaa tababar soo xiray ardayda dhigta kuliyadda caafimaadka ee jaamacaddaasi waxaana muddadii uu tababarku u socday ardaydaasi lagu barayay nadaafadda cuntada iyo sidii ay jaamacaddu door muhiim ah uga qaadan lahayd kor u qaadista caafimaadka waxaana xidhitaankii tababarkaasi ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda Alfa ugu horeyn waxa halkaasi hadal laga jeediyay macallin Ismaaciil oo isagu macallinkii tababarkaasi bixinayay wuxuuna ka waramay waxyaabihii ay ardayda bareen muddadii uu tababarku socday ku saabsanaa nutrition and hygiene and health promotion waxaanu waxtar u leeyahay faa'iido u leeyahay bulshadeena gaar ahaan xagga nafaqada iyo gaar ahaan xagga caafimaadkaba saan dadba training ku badan wax weeyaan idinkuna waxay tiin dhalinyaradii ama dadka jiilkan maanta inaad hadhow dadka anfacdaan oo bulshada anfacdaan hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa iyo hormuudka kuliyadda injineerinka ee jaamacaddaasi ayaa iyaguna halkaasi hadal laga jeediyay trainingan wuxuu ku saabsanaa nutrition hygiene and health promotion nadaafadda cuntada iyo doorka ay ku leedahay horumarka caafimaadka sidaynu caafimaadka ku ognahay ama aynu ku baranay nutritionka iyo hygiene-ka xiriir aad u badan baa ka dhaxeeya cuntaduna haddii ay weydo nadaafad ama hygiene qofka wax ma tarto ee wuxuun bay yeeshaa qaar kamid ah ardaydii tababarka ka faa'iideysanaya ayaa ka waramay waxyaabihii ay tababarkaasi ka dhaxleen muddadii uu socday toon ku faraxsanahay inaan ka qayb galno traininka jaamacadda oo markii ugu horeysay laga qabto waan ku faraxsanahay haddaanu nahay ardayda kuliyadda caafimaadka farxad weyn bay noo tahay inaan dhammaystirano health nutrition hygiene and health promotion oo nasiinayay macallin Ismaaciil waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhanka kuliyadda caafimaadka Dr. Farxaan Cabdi Ciid iyo macallinkii seminaarka bixinayay Dr. Ismaaciil gudoomiyaha jaamacadda Alfa iyo dhammaan ardaydii ka soo qayb gashay seminaarkan muddada 3 cisho u socday gudoomiyaha jaamacadda Alfa Professor Cabdiraxmaan Maal oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu tababarkani muhiimad weyn u leeyahay ardayda dhigta kuliyadda caafimaadka ee jaamacaddaasi haddaan u leexdo ujeedada tababarkani lahaa maadaama aad arrintiinu ay khusayso xagga caafimaadka tababarkani wuxuu ku saabsanaa daryeelka ama ilaalinta nadaafadda cuntada waxa weeye waa topic aad iyo aad muhiim ah oo bulshada qayb libaax ka qaadan kara haddii nadaafadiisa ama cuntada ay cunayaan la ilaaliyo marka waxaan filayaa inuu aad iyo aad idin anfici doono oo waxbarashadiinii hore ee idiin socotay oo idiin kaabi doono waxa weeye qofka caafimaadka baranaya iyo ninka macallinkii labaduba waxa weeyaan dad bini aadam ah ay la xidhiidhaan si gaar ah ninka macallinkii ardayda qof bini aadana loo keenaa waxa weeye waxa looga baahan yahay qofkaasi inuu barbaariyo uu toosiyo oo sidaasi la mida idinka ana waxa la idinka baahan inaad qotaan qof akhlaaq wanaagsan qof asluub wanaagsan qof naxariis badan qof soo dhaweyn leh oo waji macbuus ahayn bari ka maalin markaad jaamacadda ka baxdaan bulshada dhex gali doontaan dadka marka aad la kulantaan haddii waxa lagaaga baahan yahay inaad tiraahdo hooyo aabbo qofka aad la kulanto hooyo aabbo adeer maxaan rahdaa walaal inaad tiraahdo oo soo dhaweyso oo ay ka muuqanin waji macbuusnimo sababtoo ah waxa weeye waa number 1 qofka dhakhtarka ah inuu wajigiisu ahaado mid furfuran mid qof akhlaaq wanaagsan qof naxariis badan inuu ahaado waxa lagu keenayaa waxa laga yaabaa inaad la kulanto qof xanuunsanaya
ugu dambeyn waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii tababarku u socday. Wasaabi Cabdi Gole, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.